go-aanka soo baxay waan soo dhawahaynaa waan ku faraxsannahay waan sugaynay waa kii aan dalbannay ugu horreyn waxaan rabaa inaan fursaddan anigu ka faa'iidaysanayo u mahad celiyo dhammaan dadka Soomaaliyeed culumadooda gudaha iyo dibadda iyo aqoon-yahankooda dakaatirada bulshaweynta Soomaaliyeed dhaqan haween culumo arday ee ka dhiidhiyey afkaarta oo takfiiriga ah dadka lagu yaqaan hore u sheegnay inay faafi jireen social media youtube yaal aan cadaynay in dad badan aakhire ay u aadeen dadkii dhintay ahaladoodii in la farax geliyo in ummadda Soomaaliyeed kulligood ay nala qaadato in aan kulligayna nabigayna salawaatullahi wasalaamu calayhi jacaylkiisa isku walaashano inaan isla difaacno sharafka iyo qiimaha nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dhammaan islaamka uu ku leeyahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxda qaranka oo ugu horreeya madaxweynuhu ee arrinta tan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha golihiisa wasiirada guddoomiyaha gobolka banaadir hay-adaha amniga oo dhammaantood runtii mas-uuliyad weyn iska saaray qiimeeye rabitaanka shacabka aan qaatay talooyinka culummada qaatay talooyinka waxgaradka Soomaaliyeed qaatay talooyinka bulshada Soomaaliyeed ogaaday xaqaa'iq aan wax ku dhisnay ee arrinta nala gartay ee joojiyeen waa u mahad celinaynaa si kaliya laaba ayaan u mahad celinaynaa madaxweynaha iyo inta fikirkaas kula talisay kuna taageertay door nuucee ah ayaad ku lahayd shakhsiyan adigu ama culimadii kale ee fikirkan kula qabtay in muxaadarada Sheekh Umar Berri uu qaban lahaa la joojiyo taasi waa saan aaminsanahay anigu dalabaan gudbinay waxaan cadaynay fikirkayna waxaan cadaynay in aysan habboonayn dadkii Soomaaliyeed ee lagu gaalnimo xugmiyey dadkii ku gaalnimo xugmiyey raggii mutadarrifiinta ahaa ee fulinaya fikirkaas ee xagjirka ahaa ay laayeen oo u dambeeyey in guddoomiyaha gobolka injineer Riisow in lagu qabto dadkaasi mucallimiintoodii qaar ka mid ah inay muxaadaro ku qabtaan garoonka injineer Riisow loogu magac diray iyadoo xinjirtiisa muuqato dadkii dilay ay yihiin shabaab macallimiintiisana la yaqaano aad og tahay dowladdii Cabdullaahi Yuusuf الله نحريسته وحير دولتي عبد الله يسوع الله نحريسته حكم كله صاري إنجليز وحول شقينا أي دتك ديل كل واحد حكومة كجري اختيار سوق جاري حول شقينا أي نور عدو سأكتين دت بدنا الصومالية ذا كل هذا دتك مركن نوع عاسها إن أنا أو حات الماني يعني أقوان تكور كوركير أنت اللي مات حنجرت كوركير أنت اللي مات دتك الصوماليات دتك النبي عليه الصلاة والسلام وحكى شيء yaan ummadii dadkii nabiga jeclay hortiisa ila soo joojinaa dhahnay anigu waxaan markaa fikirka qofka ugu horeeya ee arrinta doo ogaada ka dhiidhiyay waxaan uga mahad celiyaa dhammaan inta igu raacda taladaas oo garab igu siisay uga mahad celinayaa waxaan uga mahad celinayaa ciddii dareenkaas Soomaalinimada ah diin jacaylka ah xabiib jacayl salawaatullaahi wasalaamu calayhi fi kulli waqti wa hiin dal jacaylka ah dadka Soomaaliyeed inay xisaabtamaan oo qof oona waxa ay sheegayso la duubaayo maalin lagu qabsanayo sida aakhiro ilaa hortiisa lagu qabsanayo adduunyada in lagu la xisaabtamaayo inay dareensiina ayaan rabay markii anigu waxaan ku lahaa kaalinta ugu horeysa inaan dadka u iftiiniyay intaas baan xiriir toos ma jira oo madaxda dawladda aad la sameysay ama wasaaradda diinta oo arrintan aad kala hadashay arrinta tan madaxda dawladda waxaan u marsiiyay sida ogtihiinba وسائل الإعلام كأمرسيين واجرتا وزير كأوقافته إلى مدينته إنه يسوعي قدوميها قبل كإنه يسوعي رج أو لا تلياشي مدحوينها قاركود إنه يسوعان واجرتا تلاس وذاك سنة فكر كان كيا أنشرحاني مركا أنشرحي ومدي الصوماليات أردنا وحوش شرح هذا إن أرنت أنا إتهاي أرن عقيدة
arrin mabaadi ah arrin diini ah arrin wadaniyad ah arrin u baahan ila dowladda ballan aan lahayn aniga dowladda ballan Soomaaliya dowladda Soomaaliya ballan aan lahayn ballankaan lahayn waxa ah dalkan in fikirka takfiiriga ah iyo cid ximbaarsan laga joojiyo waa gartay muxaadarada sida la sheegay ciwaankeedu wax kala aragti duwanaansho ka hadlaya ma ahayn marka idinku maxay tahay sababta aad u diidantiin in muxaadaradaas oo si guud muxaadaro guud ah la qabto muxaadaradu waxa ay tahay ciwaankeeda noogu filan masiibooyinka sida loo xalilayo iyo waxa loo asbaabta masiibada keenta iyo sida lagu daaweynayo ku saabsan tahay nari masiibatan u weyn badan waxa waaye in qofka aqeedada laga hadlayo dadka aan ku aaminsanayn anaga aan aaminsanayn inay fikirkan takfiiriga muallimin u yihiin inay hor soo istaagaan dadka aan aaminsanayn oo cadayn u keenay in nabiga kaleey salaatu wasalaam shakhsiyadiisa iyo sharafkiisa iyo xurmadiisa qeyrjeen dadka Soomaaliyeed boqol muslima intooda badan ahlu sunna ah dadkii aan aaminsanaynay dadkii gaala ku sheegay oo dhahay mawliidka nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa laga keenay gaala looga dayda dadka ku dayanayna gaaladu lamid ay dhahay oo mawliidka nabiga kaleey salaatu wasalaam xoolaha dadku isu keensadeen soo hadiyeen waa xaraam dhahay oo xoolo xalaal xarimay oo salawaadka la akhrinayo oo halkaas nabiga lagu amaanayo waa shirkiyaad dhahay qofkii waxa way ficilkiisu shirkiyaas oo mushrik mugta dadkii noocaas sameeyay oo wasaal calaamka ahaysiin oo youtube-yada yaal ogtihiin oo ay idin hor keenay dadkii noocaas aha fikirkaas cid kasto aaminsan inay dadka Soomaaliyeed wuxuu sheegto waa fidno idinku inaad joogtaan oo muxaadaradaas ina tagin dadkii muxaadaradaas rabana ay aadaan oo ay soo daawadaan kana soo qayb galaan maxaa ku jabay cara ilaahay inay ku soo dhacaysa goobtaas aaminsanna magaalada Muqdisho markii cara ilaahay meel kamid ku soo dhacdane raali kuma nihin oo kulligana wada halaageen waa gartay waxaa la leeyahay Sheekh Somo arintan si shakhsiyadeed oo Sheekh Umal ah ayuu u haystaa arintaas eedeynta maxaa uga jawaabaysaa aniga cid hayso horta ma arkin Umalna aniga isma naqaanin isma ana arag waliga islama fadhiisan gacantaydii ma gaarin waliga isma salaamin fikirka oo qabo iyo ka anigu qabo kala duwan aqeedada uu aaminsan yahay ta anigu aaminsanahay kala duwan jacaylka nabiga kaleey salaatu wasalaam sa anigu aqaani sa u jecelahay iyo asaga ma ka jooga ayaa kala duwan marka ninkaas aad sheegayso oo Maxamed Cabdi Umal leedahay anigu si shakhsi ah oo laba qof wax ka dhaxeeya oo naga ma dhaxeeyo waxa naga dhaxeeyo kaliya waxa ummadda islaamka oo dhan ka wada dhaxeeyo ilaalinta xurmada nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaalinta qofka muslimka diintiisa oo aan lagu gaalnimo xukumin qofka muslimka in lagu gaalnimo xukumaya dadka muslimiinta in lagu gaalnimo xukumin marka anigoo aaminsan in dad badan fadwadiisa loo laayo anigoo aaminsan dad badan inuu ku gaalnimo xukumiyay anigoo aaminsan inuu nabiga kaleey salaatu wasalaam oo meel uga dhacay intaas aan ay mabda'a noocaas ay anigu kana soo horjeeda waligeynaan ogolahaynin anigu qorama sidan وصولد مسيدن أول مسيدن كان سيدي وحن كهذا حقيقة ذي وحنا أمسناي واقف أنت أمالينا يا وحيماني سا أديكم مركاد واحد أمسنتا كهذا الشيء عد كوكو بنام بحذي أو كوكبسطي أو يعني كوري ساكتي مجرين وحنا سويدين كرا أديكم هذا محد أور تاجنته نبي جن وحول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده تاس دولة دالجرا قف كل شيء شريعة الإسلام منكر كوارت gacantiisa ku zuuliyo dawladda laga rabaa fa in lam yastadi haddoosa inuu gacanta ku zuuliyo oo awood u lahayna fa bilisaanihi arabkiisa ku zuuliyo taasna culimada laga rabaa culimada waxa laga rabaa inay xaq cadeeyaan qofka hadduu bidca oo daahirsanayo in la yiraahdo qofka mubtadic waay hadduu bidcadiisu ay tamid oo gaalnimo keenaysa in la yiraahdo bidcadiisu gaalnimo keenay in dadka looga digo anaga dadka waxa u cadeeynay mabaadiida umal inaysan ahayn mabaadi diinta islaamka ay ogosha way dawladda sheegtay in laga rabo arinta Sheekh Umar maxaa idinku dawladda ugu deynaysan oo adigu dadka ugu dawladda kaalinteeda waa u deyn aniga xog ma gelin kaalintayna qaadana oo cadeynta ah aan baxay oo sheegay in arinta uu wax la aqbali karo aysan dawladda kor
soo daliil halkaas kuma lihin anigu waxaan sheegnay oo shakhsiyan anigu sheekh soom aan sheegay oo adinkiiba ay iga duubteen ogtihiin hortiin aan sheegay xaqaan caddayn aniga caddaynta xaq aan ku leenna meesha inay xaq caddayno ayaan ku leenna wax ficiloo kale maba lahayn baa ninka waayo culimo kale imaan jirtay dalka maxaa la yidhahdaa muxaadarooyin qaban jiray arrinta sheekh umal u goonida ah sida dhabta ah markaad uga hadasho maxay tahay oo aad ku haysataan ninkaa sax waaye dad badan oo ninkaas maxamed cabdi umal ku madrasa ah ha ahaadaan ictisaam ha ahaadaan salafiyo ayaa imaan jiray qaarni magaalada ay nala joogaan waxna waa jeediyaan laakiin asiga qof aan haynin ee ananka intan soo istaagtay mawliidka dadka qabanaya waa dad mawliidku sidiisaba nabiga mawliidka waxuu ahaay siiradiisa laga warramo uu ka kooban yahay in wax la sadiqay uu ka kooban yahay in sadiqada la bixinayo waxa ugu horeeyana mawliidka nabiga lagu baxshay alayhi salaam lagu baxshay waxay ahayd ictaa qof dhan oo la xoreey ahayd nabiga alayhi salaam tacdiim asaa ku bilaabo isniin kasta soomi jira maxaa u soomaysa waa maalinkii la dhalay qur-aankana lagu soo dejiyey labada khaslad weliba wuxuu hormariyey waa maalintii la dhalay hormariyey marka mawlidka oo noocaasa ee weynintiisa nabiga uu bilaabay alayhi salaatu wasalaam ee muslimiinta uga dayanayso nabiga in la weyneeyo asaga ay uga dayanayso oo aayadda qur-aanka axaadiista ay kasoo dhex baxsanayaan in la yidhaahdo gaala laga keenay qofka la soo jahray ee ku muxaadareeyey asigoo ah qofka la soo jahray waxa lagu qaada mawliidku inay shirki yihiin asigoo ahaa qofka la soo jahray dadka muslimiinta ah xoolaha ay biraynayaan oo ilahay leeyahy fakuluu mima dukira ismullah ilahay uuna leeyahay oo ahlu duxuudka oo biraynaayo xoolaha maalinka laqalayo waa xaaraan la soo jarane asigoo ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam daatadiisa sida aad ogtihiin oo aragteen aniga qalbigayga iyo carabkayga maba dareemi ma awood ilahay kama galay waxa uu sheegay inaan sheego noocaas ah oo tanqiisin ah la soo istaagay amaama allah wa amaama khalqina asigoo ahaa marka in aninku dhulkayna ruux noocaas ah lagu buunbuuniyo amba lagu weyneeyo amba lagu soo dhaweeyo amba kaale la yidhahdo dadkii agoonta ahaayoo le'day oo shalay aabbayaalkood amba hooyaalkood kuwii adigu a u iftoota ay laayeen kaala in u khudba in la yidhaahdo damiirkeenana sii waayo waayahay waxaa jira sheekh sumow intii arrintan ay jirtay labada maalin ugu dambeysay dad kala duwan baa siyaabo kala duwan arrintan uga hadlayay waxyaabaha qaar dadku ay leehaayeen waxaa ka mid ahaa in duruuqu suufiya ay doonayaan inay ismuujiyaan arrintaana sidaas ay uga dan leeyihiin oo dariiqooyin kale ay yacni challenge la galaan ma jirta arrinta wax ka dhiidhiyey dhammaan ahlu sunna wajamaaca waxaa baraha bulshada haddaad fiirsto waxaa qoraalada sameynayay saxwada mutawasidiinta ah dhammaantood waana na soo wacayen waana sameynaya rag badan oo salafiya aan ogoleyn arkayna ahlu sunna dhammaantood arrintan ya kasoo horjeeday qof la yaqaan siiradiisa mujtamaca uu ku leeyahay bulshada uu ku leeyahay shaksi la yaqaano anunku waxaan dhahna maya xaqaana caddaynay dadka bisha lagu jiro waa bisha nabigu dhashay alayhi salatu wasalaam oo mawlid baan ku jirnaa magaalada muqdisho waxay mashquul ku taha inteeda badan sida habeenada arkaysa ama maalmaha arkaysa xafalaad la samaynayo tacdiiman limawlid nabi sala allah alay slam loo samaynayo qof kullid ah inuu yimaado ee arrintaas arrin kullida ou jeediyo aan aada noo dhibaysay arrintu waa arrin caqiida ah arrin qof oona ka warrami kara ma ahayn arrin qof oona oo ka hadli kara ma ahayn marka arrintu noocaas aheeday waxaan rabaa adigu shaksiyan ma isku dayday inaad sheekh umal inta u tagto aad tiraahdo waxaan iyo waxaan iyo waxaanaad sheegtay maxaad ka waday maxaad ula jeeday inaad dhahdo maxaa adiga kuu diidan oo kaa hortaagan intaadan abaabul iyo banaanbax samayn qawaacidda guud ah waxay jirtaa wixii dembiga hoos oo loo galo hoosaa looga toba keenaa dembiga oo dadka hortiisa lagu galay oo dhan lagu hortaanay dadka hortiisa looga toba keenaa aniga iyo umal ma aanan kulmin ma aanan fadhiisan arrintaana kama hadlin
mana ka hadli doono ilaa toobad waa furantahay inta isoo istaago fikirka takfiiriga ahay fatwadiisi intii ku leatay dembi dhaaf allah ka weydiisto cafisna ahladii ka weydiisto caddeena inuu ka laabtay ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha ka duuban oo wada ognahay oo adinkuun ogtihiin oo aad u ogtihiin asaguna uu ogyahay waxaan ahayn oo ka duubo ee uu yidhahdo waa kaas waana khaldamay ma khalda waa ilaahay ilaa uu ka yidhaah mana la fadhiisan doono oo haddaan kuu caddayaha inaanan la fadhiisanaynin wasaaraddu waxay sheegtay in qaabab kale muxaadaradii sheekha iyo wacyigelintii uu doonayay loo sameynayo marka idinkuma waxaad diidantiin oo keliya in la isugu yimaado meel oo fagaaraha sida garoonka oo kale mise waxaad diidantiin gebi ahaanba in uu wax qabto horta waa ayaan daro weligaa ma aragtay xaflad muxaadaro la qabanayo ee guddi wasiiraa loo magacaabayo ee maamulka gobolka loogu yeerayo waa arrin siyaasadeed labo beledka culama joogta in baabuur buruuf la siiyo oo koofi guduud lagu wareejiyo kaalaya muxaadareeya lama yidhahdo kula yawmin muxaadaro sameeyaan kula yawmin dadka wacyigeliyaan fikir siyaasi ah oo dowladdu ay wadato waxay kala eedaad taqaan taas dowladda rab inaad warsatiin inaad dowladda kala xiriirtiin anigu fikir siyaasi ah aragnaa dowladdu marka siyaasadeeda iyadaa laga rabaa laakiin waxaa laga rabaa wax bulshada mujtamacaanu uusan raalli ku ahayn inaan lagu khasbin lana horkeenin in la joojiyo banaanbaxa in mawlacyadooda ay joogaan masaajidooda ay joogaan howlaha hor gaarka ah ay qabsadaan dowladdana waxaan ka rabnaa ballanta ay qaada inay fuliso inaysan dhicin muxaadaro istaadiyo konis ama mujtamac meel ka dhexaysa hortiisa lagu qabto ee dadka loogu yeero ee lagu khasbay kaale dhiginsada la yidhahdo inaan dhicin dowladdu marka waa u mahad celinaynaa ballanqaadkeeda inay fuliso ayaan ka rajahaynaa shacabka soomaaliyeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahad celinaa ku baaqayaa inaan ilaalino amniga qaranka inaan ilaalino amniga qaranka inaan ilaalino dowladnimada inaan ilaashano caqiidadeyna wanaagsan inaan shacab iyo dowlad kulligeyna u istaagno dowladda waajibka koobaad ay leedahay waa ilaalinta diinta dalka dadkii waa kana fikirkay rabaan mid ahayn yaan lagu qasbi diintiina waa tanaa yaan diin looga dhigin wax diinta islaamka kasoo horjeedo dad fikirka takfiiriga ahay dalkan yaan lagu dhiirigelinin waxaan codsahaa anigoo sheekh cabdiqaadir sheekh maxamed sheekh abubakar sheekh soomowa u mahad celinaya dadka axbaab rasuulilaahi guddiga difaaca nabiga salawatullahi wasalaamu alayhi ragga la baxay waxaan ugu baaqayaa muxaadarooyinka banaanbaxa ay diyaariyeen oo aadka u weyn ay nagu wargeliyeen inay joojiyaan